fadlan subscribe channelka sidoo kalena gambaleelka furo si uusan ku dhaafin wararka muhiimka ah ee aanu halkan soo gelino. gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo ahna madaxa amniga iyo siyaasadda Cismaan Nuux Xaaji Macalimo oo shir jaraa'id ku qabtay degmada Balad Xaawe ee gobolka Gedo ayaa shirkiisa jaraa'id kaga hadlay heshiis ay dhawaan ku gaareen magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya qaar ka mid ah madaxda isbeddeldoonka Jubbaland iyo Axmed Madoobe. Cismaan Nuux Xaaji Macalimo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo ahna madaxa amniga iyo siyaasadda ayaa heshiiskaasi ku tilmaamay mid sharci darro ah waxaana uu sheegay gudoomiyuhu in Axmed Madoobe xilligan uusan madaxweyne ka ahayn maamulka Jubbaland. sadogtiinba istaadka hadda aan joogno waa Jubbaland Axmed wuxuu soo istaagay doorashada ayadoo raali laga helo reer Jubbaland ay diidayeen ay xoog isku doortay lagana aqbalin shacabka iska hogaansami jiray iyo bulshada reer Jubbaland oo dhan way ka hormaadeen barnaamijka sagaha dawladda Soomaaliya iyo beesha caalamka way ka hormaadeen doorashada waxa raali laga noqon karaa shacabka la xukumayo markuu raali ka yahay dawladda Soomaaliya waxay mas'uul ka tahay shacabka Soomaaliya meel kasta ha joogo mar haddii shacabkii uu diiday dawladdii ay diiday beesha caalamka ay diiday waxa la dhihi karaa waxa diyaar loo yahay oo si dhab ah diyaar loogu yahay in doorasho cusub oo rasmi ah la gala qof iyo labana looma xirxirnaan karo bulshada Soomaaliyeed uma xirxirnaan karaan arrinta iyada waxaan leenahay waxaan rabnay dawladda inay waqti hore imaado halkan doorashadii Jubbaland ay ka qabatay ayaan rabnay waxaan la dhihi karaa waxa loo xirxirmay ama loo istaagay cudurrada carrada ka jira iyo dhibaatada maxaan ku raadintaa baa loo hakaday wuxuu yiri maroodi maxaan ku raadinaa waa xagee uu ka amaso dhag uma uusan dhigin markii dambe uu yiri xagee soo maraysaa anaga marka maanta uma aragno wax weyn oo maxaan ku raadinaa culays hadda nimankan heshiiyey wixii meesha isku haystay ayaga ma aysan ahayn waxa meesha isku haystay Axmed Madoobe iyo bulshada reer Jubbaland iyo Axmed Madoobe isku haystay Axmed Madoobe iyo team kala jiray oo gada ka dagaalamay wada ogtay maanta waxay ku yihiin gudaha Madheera iyo Nairobi joogan xataa gada ma joogan ama dalka Soomaaliya oo Jubbaland gudihiisa ma joogan meesha hadda maanta lagu soo heshiiyay leeyahay waa gudaha Kenya waa ka xunay maanta Kenya iyadoo dawlad ah oo dhisan in dawladda Soomaaliya dad mucaarad ku ah oo dawladda inay qabato ay rabta inay gudaheeda ku xanaanaysa ku baanaysa ay ka soo duulaan inay ugu taragasho sax maaha arrintaas marka waxaan leenahay dawladda Kenya haday aragtay sidaa noqotay oo aragta qaldan dhammaan gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Gedo ayaa heshiiskaasi ay ku gaareen magaalada Nairobi qaar ka mid ah madaxda isbeddeldoonka Jubbaland iyo Axmed Madoobe gaashaanka u daruuray waxaana ay sheegeen in shirkaasi uu yahay mid sharci darro ah isla markaasina aan loo dhamayn. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halkan waxaan isugu nimid in aan uga hadalno shalay wixii ka dhacay Nairobi oo ninkii la dhihi jiray Axmed Madoobe iyo raggii isku sheegayay inay isbeddeldoon ahaayeen oo ummadda Soomaaliyeed weligoodba dhagartooda iyo wixii ay sameynayeen iyo busleetooyinka ay tuurayeen mar walba oo dhan laga warqabay maadaama aan xuquuqaal u ahayn xidig iyo seeraar inay ahaayeen dad ma garanaysaa ee u soo galay garoonka Jubbaland in ay fawdeeyaan oo fawdada ay sameynayaan aysan ku fawdeynaynin ninka la yiraahdo Axmed Madoobe ee ahayd inay ummadda ku jahwareeriyaan laakiin waxa Ilaahay baadiyaa dadku way yaqaaneen xidig iyo ninka la yiraahdo Axmed Madoobe iyo seeraar iyo wadaadka kale anigu waligayba ma aragay meesha dhinacooda taagnaa dhamaan horta waa Soomaali galbeed oo waxay ka yimaadeen Itoobiya Jubbaland waxba kuma ay laha haddii Jubbaland wax ku leeyihiin sida hadda ay u dhaqmeen iyo si u dhow midna uma aysan dhaqmeen 7 sanana Axmed Madoobe oo dadka gowracayo oo leynayo oo madaxweyne feega sheeganayo ma aysan ag fadhiyeen oo madaxweyne umayna aqoonsanaadeen waxa hadda la isugu yimid oo la leeyahay waa ku heshiinayna waa dadkii muslimiinta ah oo la laayay oo la qabateeyay oo la dibaateeyay shoodii iyo ma garanaysaa dawladda Kenya oo ayadana baratay inay dadka Soomaaliyeed digooda cabto iyo calooshooda shaqaystayaalkii oo ayagana garanaysaa amar lagu siiyay in ay tusaan dadka inay ma garanaysaa heshiiskaas heshiiseen waa qiyaano weligiina qiyaano waan ku ogeyn ceeb iyo fuxshi ina dhex taagnaataanna waan ku ogeyn Jubbalandna ma matashaan
afartiinana afar nin oo isku jifaa oo reer Soomaali galbeed ah tihiin Jubbaland masiirkeeda waxba in kama quseeyaan wax idin yaalana ma aha Jubbaland saddex gobol oo midowda la isku yiraahdaa saddexda gobolna midna ma degtaan gadana ma degtaan Jubbada dhaxana ma degtaan Jubbada hoosena ma degtaan afartiinana waa la idin yaqaanaa ilaahayga ummadda in ka dulqaaday oo Nairobi ku asheeray baan ku xamdinaynaa halkaad joogtaan inaad noo soo dhaaftaan ma rajeynayno insha Allah ilaahay fadligii waxaan rajeynayaa nidaamka cadaalad darrada iyo fuxshiga ku salaysnaa maanta meeshii ugu dambeysay oo isku nafcila halka inay tahay annagana waxaan cadeynaynaa haddaan nahay maamulka degmada Buurdhubo iyo bulshada ku nool weliganabo horayna noogu midna saqiirin haddana noo midna saqiirin horayna noogu midna kabiirin weliganana waa idin naqaanay dhagarta idinku jirtay waxaana dhali doontaana waa ogeyn haddana waa cambaaraynaynaa waana ridinaynaa ilaahay baana dawlad naga kiin kaafisana siisay halkaas inaad ku asheernaataan oo Kenya daba dhilif u haataan baan ilaahay ka rajeynaynaa waana idin la diriri doonaa waana iska kiin celin doonaa insha Allah waduu ilaahay yiraahdo annagoo kaashanayna dawladnimada sharafta leh ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed cid kasto wax garato xubaasha wax garadka dhalinyarada dhammaan hooyooyinka kastoo kaashanayna insha Allah waana ku ciideen waxa samayseen jifaada Soomaaliya u tashanaysana waa hore jifa taladeed meel lagu gaari lahaa waa in camaareynayna waxaa idin leenahay caradiin ugu dhamaada qul muutu biqaydikum baa idin leenahay insha Allah ta'ala wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh